kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno boqor Cismaan Maxamed oo ku magac dheer boqor Buurmadow. waxaan ku kulannay magaalada Muqdisho oo uu safar ku joogo. boqor Buurmadow ku soo dhawow BBC Soomaali. su-aasha ugu horeysa aan jecelahay inaan ku weydiino waxay tahay waxaad nooga warbixisaa safarka aad ku timid magaalada Muqdisho iyo ujeedadiisa. bismillahi raxmaan raxiim. safarkaygani wuxuu ka mid ahaa safar aan ku marayey qaarada geeska africa oo dhan aan ku marayey. aan ka soo bilaabay Ethiopia, Nairobi, Kenya, halkana aan ku dambeeyey. haddeer aan doonayo inaan meelo kale ugu sii kicitimo oo geeska ka mid a oo aan ku marayey socod gaaban iyo haddii aan laba leeyahay kuurgalka xaaladaha geeska. haddiise laga tegi waayo waxa weeye khilaaf madaxda ka joogta gobollada waqooyi ama madaxda dir ka joogta halkan siyaasadda waxoogaa khilaafi dhex galay inaan arrinkaa dhex galo oo aan isu soo dhoweyn ka sameeyo ayay ahayd. tiina waan ku guulaysanay alxamdulilah, meel fiicanna way noo maraysaa. laakiin adigoo ka mid ah madax dhaqameedkii Somaliland qayb ka ah, Hargeysana degan, sidee suuragal ku noqonaysaa inagoo og xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland iyo meesha ay ka taagan yihiin arrimo siyaasad la xiriiran aad qayb ka tahay oo aad sida hadda sheegtay khilaaf xalinayso? markii koowaad ma ahaan arrinkaa ka qayb qaato. Puntland oo Soomaaliya ka mid ah horaan khilaafkeeda u xalilay, Somalilandna way igala shaqaynaysay, raalli bayna ka ahayd. meel kasta oo khilaaf ka jirana waan tagaa. Ethiopia aanu tagno dagaaladii ka dhacay Daroor iyo mushkiladii iyo kaliilka shanaad baanu tagno, waxbaanu ku xalilay. waxay ka mid tahay un arrimaha dhaqanka iyo haddii aan laba leeyahay khilaafaadka iyo horumarka meel kastoo khilaaf ka jira inaan ka soo qayb qaadano. arrimaha siyaasadda siyaasiyiinta u taallaa. qolo kasta aaminsanaanteeda iyo waxay aaminsan tahay iyo nidaamkeeda iyo maamulkoodana dee waan ku ixtiraamaynaa. arrinka siyaasaddu siyaasiyiinta u yaallaa, laakiin anigu wixii dhibaata iyo khilaaf inaan ka shaqayno nabadgelya horena waan uga shaqayn jiray. intaan ka shaqaynaan noqon jiray Somaliland ku noqon jiray. haddee ratan markaan dhammeeyo Somaliland si dhaqsaa baan ugu noqon doonaa markii ii soo gabagaboodo. wax dhibaato ahina ma jiraan. waxaa jirtay mar aad Puntland tagtay oo aad ka qayb gashay caleemasaar oo markii aad Hargeysa ku noqotana lagu xiray. maxaa lagu xiray markaas? tug dhuumanaya maan ahayne waxaan u tegey si cad baan u tegey. wafdi baan hogaaminayey, 40 salaadiin iyo madax dhaqameed ay la socday. siyaasiyiintuna hadday doonaan markay doonaan siyaasaddu way iska qoosi badan tahay. arrinkaasi dhacday bay ahayd, waana laga heshiiyey. wax dhibaatahayna kama dhicin. waxayna daba joogtay arrinkaasi fikirkayga aan aaminsanayo tukaraq xoogaa dhibaato ah oo ka dhacday ayaan labada maamulba la hadlay. marka madaxdii Somaliland joogtay way dhibsatay, arrinkaasay dhibsatay, waana ka heshiinay. wax dhibaatahay kama dhicin, waa dhammaatay. markii aad timid magaalada Muqdisho waxaan aragnay in lagugu soo dhaweeyey aeroboortka, safaf dhaadheerna lagu galay. dad badan oo siyaasiyiin ah ka mid ahaa dadkii ku soo dhaweynayay. yaa fududeeyey safarkaagii magaalada Muqdisho? mase jirtaa cid gooni ah oo kuu yeerta oo ku soo dhaweysay? shacbiga aan odayga u ahay ayaa fududeeyey oo ka shaqaynayey. hawl hore igu bilowna hore u yimi oo arrinkii khilaafkii taagnaa ee mas-uuliyiintii Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed ayaa qaybo ka qabiya ah baan u soo noqday. soo dhaweyntaasina soo dhaweyn shacabka ka dhalatay bay ahayd midaan anigu wax ka ogaaba may ahayn. si sarbaraysa ayaan ula kulmay. marka yaa ku yeeray? cid ii yeedhay ma jirin. hawshii ii bilownayd ee dhexdhexaadintii hore ee aan aqbalay ayaan markii hore aan tegey aan dhammaystirnayn. qabyaan kaga tegey, qabyada inaan dhammaystiraan u soo noqday. fikiraan anigu leeyahay bay ahayd taas. waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo boqornimadaada. yaad boqor u tahay? ma mid ka mida beelaha dega Somaliland, Somaliland oo dhan yaad ku matashaa boqornimada? ummadda Soomaaliyeed geeska oo dhan ayaan ku metelaa. waxaan ku metelaa shacabka Somaliland, waxaan ku metelaa shacabka degan Djibouti, waxaan ku metelaa kuwa degan kaliilka shanaad ama maamul goboleed ama ismaamul dowladeedka Soomaalida ee Ethiopia, kuwa NFD iyo Kenya dega, kuwa Muqdisho dega. mid walba waan ku metelaa shacbigeygii weeye. yaa ku doortay oo inaad matasho dadkaas oo dhan? waa lay doortay, shacbiga ii doortay. waxaaba ii doortayba Afrikaaba la doortay oo ii dooratay. geeska Afrika oo dhan baa ii doortay. Libiya ay ahayd,
madaxa dhaqameedka afrika oo dhan ba halkaa isugu yimi doorasho weyn oo rasmiya ka dhacday madaxda dhaqanka ee halkan joogta maxamuud cali ugaasiya baa ka mid ahaa rag siyaasiyiin oo halkan joogaa ka mid ahaa cumar finishiya baa ka mid ahaa raggii goobjooga ka ahaa afrika oo dhan baa ii dooratay taasi waa taa weeyaan ta labaad qabiilka aan ka soo jeeday waqooyigu waxa weeyaan halkan uu joogaa kenya qabiilooyinkii ugu horreeyey buu ka mid yahay degan sida ballaadhan u deganaa ilaa iyo waqtigii ingiriiska bay ka mid yihiin n f d dadka degan bay ka mid yihiin waxay ka mid yihiin dadka etoobiya degan bay ka mid yihiin taasina waa dadka rasmi ahaan aan markaygii horeba boqorka gaarka ugu ahaa weeyaan boqor buurmadow ma aaminsan tahay fikirka gooni isutaagga somalilan iraadatu shacbi weeye annagu madax dhaqameedku ma goyno mowqifka siyaasiga siyaasiyiin baanu leenahay shacabkaanu raacnaa yees shacabkaygu aaminsan yahay waxa shacabkaygu aaminsan yahayna waan aaminsanahay marka waxay ka dhigan tahay inaad aaminsan tahay somalilan inay gooni isku taagto dabcan waan aaminsanahay bal waxaad isqabadsiisaa marka inaad aaminsan tahay somalilanna inay go'do siyaasaddii soomaaliyana aad ka dhex shaqaynayso ood siyaasaddii ku dhex jirto waxay isku waafaqaysaa shacbigaygu meel kastuu joogaa madaxda sarsare ee dalka ayaan wax ku leeyahay qodobka kale anigu fikir ka ballaadhan oo kalena waan aaminsanahay afrika inay dowlad noqon kartaan aaminsanahay afrika inay isu iman karto sidaa maraykanka iyo qaaradda yurub iyo maraykanku ay dal qura u yihiin afrika inay dal qura noqon kartaan aaminsanahay aan ku shaqaynayay rag badan oo madax afrika ka mid an aan wada aaminsanayn markaa shacbigaygu hadduu ku qancona afrika mid ka weyn baanba aaminsanaya shacbigaygu hadduu ku qanco somalilan marka hore waxaan ixtiraamayaa go-aankooda ay qaateen shacbigaygu ya hadday ku qancaan inay soomaali la midoobaanna waxba kama qabo hadday la midoobaan afrika la midoobaanna waxba kama qabo laakiinse waxa weeyaan haddii ay kala googo-aanna shacabka etoobiyana diga kililkana boqor baan uho waan tagaa hawlahoodana waan ka shaqeeyaa kuwa kenyana waan ka shaqeeyaa kuwan koonfurta soomaaliya joogana waan ka shaqeeyaa ka somalilanna waan ka shaqeeya anigu wax xuduuda iyo border aan leeyahay ma jirto dadkaygu meeshuu joogaba inan yari halkaygaga nooshay yurub iyo maraykan baan ugu tagaa kaga daba tagaa iyo aan ka shaqeeyaa danahooda qof kastana jinsiyaduu leeyahay iyo suuradduu leeyahay iyo deegaanku leeyahay baan ku ixtiraamaya kulana shaqeeya dadkuna hadduu maraykan qaato jinsiyad maraykana qaatana waa dadkaygii hadduu mid soomaaliya haystana waa dadkaygii hadduu mid somalilanna haystana waa dadkaygii iraadatu shacbi un baan ku shaqaynaa annagu iyo qofku isaga ayaa le go-aanka uu qaadanayo laakiin waad og tahay somalilan iyo go-itaankeeda iyo xukuumadda somalilan meesha ay ka taagan tahay sidee u dhici kartaa waddan aad waddan ka goonayso inaad siyaasaddiisa haddana ka shaqayso kuma aan odhan waxa weeyaan runtii mala xoogaa dhallinyaranimada iyo da'yaraanta ayaa hadalka aan ku kala sugnayn waxaan ku yidhi anigu shacbiga somalilan mowqifkiisa iyo garashadiisa iyo go-aankiisa waan ku ixtiraamayaa kagana mid baan ahay ta labaad waad la socotaa xukuumadda somalilan markii hore labada gole ee baarlamanka iyo guurtida go-aan bay soo saareen inaan soomaaliya laba lala hadli karinba ka bacdi dowladdii siilaanya waktigeedii waa la laalay go-aanka wadahadalladii baa dib loo furay muuse biixiyo farmaajo way wada hadleen haddii aan laba leeyahay dowladda somalilan iyo soomaaliya way wada hadleen waxayba ku sigatayba inuu haddii aan laba leeyahay madaxweyne farmaajo soconaya hargeysa loogu yimaado marka waxa weeyaan siyaasadda somalilan way ogoshahay in lala hadlo soomaaliya in la tago wax dhibaataha ku jiraa ma jiraan marka waxaad leedahay anigoo aaminsan somalilan inay go-do inaan muqdisho imaado oo siyaasaddii ka shaqeeyana waa caadi shacabka somalilan way aaminsan yihiin xukuumadduna way aaminsan yihin in la wada hadlo dana ayaa iskaga kaaya xidhan internationally annaga cidna aqoonsatay ma jirto weli khaydkii soomaaliya ayaanu isku haysanaa danihii baa naga dhexeeya dhaqaalihii baa naga dhexeeya jinsiyaddii iyo wada dhaladkii baa naga dhexeeya xukuumaddaydana waa aaminsan tahay shacabkeyduna waa aaminsan yahay in la wada hadlo oo wixii naga dhexeeya laga wada hadlana waxa weya wax dhibaatahay kuma jiraan farmaajanuba soo dhoweyn gaadhno in yar nagaga baqday inuu hargeysa noogu yimaado aniguna waxa weeyaan madaxdayada waxa weeyaan iyo haddii aan laba leeyahay shacbigayga iyo go-aankay qaateenna waan ixtiraamaya wada hadallada ay soomaaliya la fureen ay ogol yihiin in lala wada hadlo danaha laga wada hadlana waan ka shaqaynayaana odaygeedaan ka mid ahay haddii taa laga soo guurana dadkan shacabkayga halkan yaalla inaan ka daba imaado hantidoodii baa taalla iyagii baa jooga inaan ka daba imaado oo haddii aan laba leeyahay xaalkooda iyo danahooda iyo amnigooda iyo siyaasadooda waxay ku jirto ka shaqeeyana ya xaq baa laygu leeyahay
shacabkayga kenya joogaana nabadgelyo inay helaan horumar inay helaan laga shaqeeyo xaq baan u leeyahay. waayahay xiriir noocee ah ayaa kaala dhexeeya xukuumadda somalilan iyo madaxweynahaba? xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya oo aanan ku kala go'i karin oo daneed oo ummadeed baa naga dhexeeya, laakiin laga yaabe fikirada qaar iyo aalaahda qaar inaanay isu kaayo qaban waa wax dhici kara, waana mid bini aadmiga dabeecaddiisa ka mid a, laakiinse wixii danta guuda wixii danta ummadeeda waan ka wada soconaa, waana ka wada hadlaa, waana ka wada tashanaa. rajo ma ka qabtaa inaad hargeysa ku noqoto? si dhaqso ah baan ugu noqonayaa. rajo ma ka qabtaa maaha, waxa weye si dhaqsaa baan ugu noqonaya. marka diyaar ma u tahay wixii dadka kale ku dhici jiray markay hargeysa ku noqdaan inay kugu dhacaan? waxbaba may gu dhacayaanba. horaan soomaaliya u iman jiray, horaan uga noqon jiray, wax dhibaataa kuma shacbigayga wuu yimaadaa, wuu la macaamilaa, ganacsi buu kuleeyahay, madax dhaqameedkaygaa yimaada. waxaa dhacaysa laakiin dadka siyaasadda ka qayb qaata intay muqdisho yimaadaan waxaan ogeyn marka hargeysa ay tagaan in la xiro. arrintaas walwal kuguma hayso? shacbigayga halkan degan baa siyaasadda ka qayb qaadanaya oo ku jira, horena uga qayb qaadanaya. anugu siyaasaddan halkan ka qayb ahay oo aan ka qayb qaatay maba jirto. kuwa siyaasadda halkan ka qayb qaata ha hargeysa ma aadaan oon ognahay, cafisay dalbadaan. anigu wax siyaasaddan halkan xilla kama qabanayo, xildhibaanna kama ihi, wasiirna kama ihi, xukun siyaasadeed iyo xil siyaasadeedna umaan soo doonan, kamana qabanayo. laakiin shacbigayga halkan jooga hadduu ganacsi yahay, hadduu mid siyaasad yahay, inaan la kulmo, xaal ogaado, wixii dhibaatada dhexdooda aan wax ka qabto xaq baan u leeyahay. maxaa is leedahay marka markaad noqonayso ma cafis oo kalaa dalbad doontaa? may wax dembi ahba maan gelin, wax siyaasadana kamaan qayb qaadan. waxa weeyaan si fiican oo wanaagsan oad arki doonto oo goobjoogka taa lay soo dhoweyn doonaa, aan u tegi doonaa, uga degi doonaa. wax cafisana ma qaadanayo, wax sababaan u qaataa ma jirto. dad badan oo degan deegaankii aad ka timid waxay aaminsan yihiin inaad ka tagtay deegaankaagii iyo meeshaad odaga ka ahayd oo aad wareegtay ood soomaaliya soo wareegtay. cid u aragta inaan ka tegey ma jirto. madax dhaqameedka ila soo xidhiidha, siyaasiyiinta ila soo xidhiidha, waxaan qabanayaa loogyahay, waxaan u joogaa loogyahay, wax dhibaato ay kama jiraan. goormaa laga yaabaa inaad noqoto? si dhaqsaa baan u noqonaya. hawlahan halkan ku hayo iyo hawlo igu laga yaabo inaan ama kenya iyo etoobiyaba ugu noqdo, inaan markay ii dhammaadaan si dhaqsaa baan u noqonaya. waxaad naga warantaa arrintaad u timid khilaafka u dhexaysa siyaasiyiinta reer waqooyiga ee muqdisho jooga, xaggee bay wax ku marayaan? wax khilaafi kama dhex jiraan, way dhammaatay, way heshiiyeen. doorashadana waxaan filayaa doorashadii ugu wanaagsanayd ee la galo waa kaa somalilan gelayso, aan wax buuq iyo dhibaato ka jirin. consens bay ku dhammaadeen, wax walba iyo wadatashi iyo isu tanaasul bay ku dhammaadeen. waad arkaysa shalay dhacday, maantay dhacday, wax buuq iyo dhibaato kama jirto. waxa weeye doorashadii u wanaagsanayd ee ugu xalaalsanayd ayaa ay qabsadeen dadkani. wax khilaafaadina dhexdooda kama jiraan, hawlahooduna si fiican bay u socdaan, qulubtooda iyo niyaddooduna waxaan odhan karaa waa hal mid. waxaad tiri wax dhibaato ah kama dhicin, waa tii ugu ficneed. waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo in mid ka mid a kuraastii baarlamaanka kuraasta baarlamaanka ee reer waqooyiga ee muqdisho lagu doortay, 3 ka mid a musharaxiintii u tartamaysay ay ka dhex hadleen goobtii doorashada oo ay dhaheen ergada la keenay doorashada ee loogu talagalay inay xildhibaanka doortaan ma aha kuwii annagana dooran lahaa iyo dadkii aan matali lahayn. marka arrintaas ka waran? arrinkaas nimanka inamadaa hadlaya ee tartamay ee markii dambena ku kala guulaystay, maalintii doorashada dhacday galabtii ay dhacaysay galabnimadii ka horreysay ayaa khilaaf iga soo gaadhay. waan wacay, waan u yeedhay, waan la hadlay. kursigaa miyaa khilaaf ka joogan yahay oo ergada aad leedihiin ergadii saxda ahayd maaha, waan joojinaa, waan ka howlgalaa. cabdi xaashi iyo mahdi guuleed inamadii way igu soo warceliyeen, ninka la yahdo maxamed haaruun iyo ninka la yahdo dayib ee markii dambena golaha ka dhex hadlayey. maxamed dayib baan ku yidhi weliba adaa cabadka kugu badnaaye ergadaas arrinkaa miyaad wax dareena ka qabtaa oo aynu hubinaa, oo aan kula hubinaa? maya wiil waan soo hubiyey, ergadii xabad xabad baan usoo madax taabtay, waa erga beesheeda ah, waana ku kalsoonahay, waana ku tartamayaa. dabadeed markii hore aan la hadlay mahdi guuleed iyo cabdi xaashi baan kursigaa layaraha kiyo khilaaf baa ka jira. markay dhammaysteen iyagoo gacmaha isku haysteen bay galeen, khilaafna kama joogin. codkii markuu dhacay siduu u dhacay arkeen bay boodeen oo hadleen. taasina waa curfiga siyaasiga ee lagu yaqaano, nina wuu xamilaa guuldarrada siyaasiga, nina ma xamilo. laakiinse waxaan ku sheegay adeer hadal beenaan maaha, waa hadal oday oo xogyaal aanu ahay oo sidaa u dhacday. inanka la yahdo ugu daqaylada badnaaye maxamed dayib la yahdana habeenkii isagaa doorashada fasaxa oo yidhi dadkani waa dadkayagii noo codaynaya.
markii laga helay markuu fadhiyey ee doorashada socotay loo codeynayay intaanu codka helina muu odhan ergadii maaha marka taas waxa weeyaan waxaan u qaadanayaa un curfiga tartanka doorashooyinka iyo xanafta iyo xanuunkay leeyihin baan u qaadanaya aadaa u mahadsan tahay boqor cismaan oo maxamuud maxamed boqor buurmadow waad ku mahadsan tahay inaad naqaabisho aad waraysanasiisa aad iyo aad baa mahadsantahay